سودو هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa waqti hore gelin horey aniga ii tahay oo hadda waagu ii bariyay saddexdii nin oo shalay maxkamadda Galmudug ay xukuntay ayaan u soo galay iguna jirabtay inaan u soo galo oo ka hadlo soo dhawaada fiidiyowgan share gareeya xaqu ka hadlaya cadaaladu ka hadlaya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haan ugu dhawaanaya ajar aan ku raadsanaya dulun inaan ku soo gudbiyo ma rabo fiidiyowgan dadka Soomaaliyeed oo halkan ku jira ha share gareeyeen saddexdii nin oo maxkamadda Galmudug shalay xukuntay oo ay ku xukuntay wixii maxkamadda laga filanayo wax ka duwan ayaan aniga aragtideeda ka dhiibanaya fiidiyowgan iga gudbi aruu dadka ma dulmiyo ama jufadeyda ha ahaato ama jufo kale ha ahaato ama jufo Soomaaliyeed oo dhan ha ahaato inaan dadka dulmiyo waa ka dheeraada Ilaahay ana ka cabsadaa waxaana ogsoonahay 3 mitir inay sugayso 3 mitirna qof uu hel iigu noqonayo inuu jirin maxkamadda Galmudug oo shalay saddexdii nin oo lagu eedeeyay haweenka hooyada iyo caruurteeda oo beesha dudubla u dhalatay raggii inay dileen la og yahay oo dadku maaragtay ay wada og yihiin la wada yaqiinsan yahay inay maxkamadda Galmudug la soo istaagto marqaati looma hayo qof dul taagnaa ma leh laguma cadayn karo waa Ilaahay ka dheeraasho reer Galmudug waa is yaqaanin waa dad wada degan haddii cadaalad darradaas lagu sii daayana kulligood oo dhan hadda qoryaha isku qaadanaya waana islaynayaan tala guud marka qorqor ninka la yiraahdo reer Galmudug qof ay ka jeclaayeen ma leh fuusto weynan badan hadda loo riixa fuustada loo riixay qorqor waxay tahay hubaal waxaa ahayd qorqor inaan teeramkan haddeertaan doorashadan la furay oo hadda November la qabanayo qorqor nin kursigaas kula tartami karo oo reer Galmudug inuusan jirin lana malaynin laakiin haddeertaan fuustadaas loo riixay qorqor wax badan oo weynan badan siyaasadiisa u dhibaysa daacadda runta markii laga hadlo waa nimanku waa niman Saleemaana qorqorna waa madaxweyne oo u dhashay Habargidir gaar ahaan Saleemaan beeshii duduble oo madaxdeedii iyo majaheediiba ay og tahay nimankii wax dilay inay nimankaas yihiin waa la idin xukumo intaas oo sanad la kugu xukumana qorqor sharafkiisa wax u dhibaysa iyo dawladnimadiisa nin jeclaysiga marka ninka dambiga geystay oo la jeclaasaday oo waa reehbal la leeyahay oo reehbal in lagu fakiyo la rabo oo nin jeclaysiga waxay ka leexinaysaa cadaaladday ka leexinaysaa wadadii Ilaahay oo ku joogtay ka leexinaysaa ummadii aad mas'uulka ka ahayd oo dhan isku diraysaa waa markii labaad oo Galmudug fiirsanayo cadaalad darradan oo kale ka dhacaysa xilligii ahlu sunna joogtay agurceel waxa lagu xukumay dadka laga tirada badan yahay kale gabar la kufsaday oo wiilal kufsadeen hadda ka hor cadaalad darro lagu xukumay meeshii lagu xukumay oo cadaalad darrada lagu xukumay Ilaahay dabow ka kiciyo waana gubatay bal u fiirsada hadalkayga Ilaahay dabow ka kiciyay waana gubatay iyada dhamad waa isla basbeesha maxkamadda Galmudug ee ku taala dhuusa mareeb Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayadihiisa iyo quraankiisa iyo awoodiisa kamina fiirsan niman la wada yaqaano oo dadkii ay dileen inay gacantooda ku dileen la yaqaano deegaankooda uu kala dhuuman karin oo meel maran oo baadiya oo dadka qofka dilay raadkiisa xataa la yaqaano ay ku dileen ayaa waxa tiraadeen mayse dilin ee waa xukumayna taasuna waxaan u arkaa rag saaxiiba inay hoos u heshiiyeen oo duduble ah iyo rag kale oo beesha Habargidir oo reer Xaaji Saleemaana inay hoos u heshiiyeen oo aan diyooyin kala qaadano oo raggan aan la dilin xukun oo saasana lagu rido laakiin cadaalad darro waxa tirsanaya odagii caruurtaas dhalay dhammaan dadkaas ka dhasheen cadaalad darro ay tirsanayaan su'aasha ah duduble waa shabaab waana qawaariij su'aasha ah oo dadku maaragtay ay soo wada qorayaan ama dadku ay maaragtay fikirkooda ka dhex guuxay duduble qawaariijta muusa dooran xooga lagu qabsada waana la dhex degay hooyada iyo aabaha iyo walaasha markii laga dhex dego laga dhex maaragtay lagu dhex fariistana adoo nin ragaato saa u xeeradaysan karto u xeeradaysanaysa duduble muxuu ka dhex doonaa qawaariijta waa deegaankiisi nimankuna xoog ku haystaan oramo iyo waxa xoog ku haysta iyo isheeg iyo balaayo kale oo la aqoon xoog ku haysata kaligoodna maahan
qabiilo kaloo hawiyaha la mida anugu cadaaladda aan saaka halkan u soo fariistay ilaahay subxaanahu wa tacaalaaha wax ka weyn male awooddiisa yuusan masiibe inku gedin carruurta birimageydada iyo hooyooyinka waa la ilaalshaa galmudug iyo qoorqoor waxaan leeyahay arrintaas dib ugu laabta dibna ka fiirsada haddaad dib ugu laaban weydeen qoorqoorow anuu saaxiibkayaa tahay siyaasaddana meel aragtiyaan kula leeyahay oo meelaan kula socdaa waddadii saxda ahayd waad naga leexisay haddii aad ku laaban weyda arrintaas waddadii aad nagu waday oo saxda ahayd waad naga leexisay dhabtaan kuu sheegaya aniga calooshaydaana kaala hadlaya fuusadaas laguu soo riixo weynanka badanna waxaa kaaga guulaysanaya kuwa meelay kaa soo galaan la'aa shalay aa kaaga guulaysanaya wayna kaaga guulaysan doonaan haddaada fuusadaas qaban weynanka badan oo la soo riixay wallaahi bilaahi tallaahi waddadaa ku socotay oo saxda ahayd oo caddeed ood u soo dhimatay oo galmudug oo dhan wax ugu soo qabatay wallaahi waad ka leexanaysaa waxaadna ku leexanaysaa wadda mugdiyaad ku leexanaysaa anigu tala cad aan ku siiyey dulonna ma aqaano ma jeclin nimo walaalaheeya oo tolkeeya in toogasho inta lagu soo xiro xabad lagu wada dhufto laakiin waxaan jeclahay hadday dembi geysteen oo cadaalad ay tahay in inta geed lagu xiro midka ila dhashay la toogto madaxa laga toogtaan jeclaha aniga hadday cadaalad tahay oo gardarro geystay ilaahay subxaanahu wa tacaalaaha ayaa ku badbaadinaya kuwa naga dambeeya wayna kala badbaadayaan haddii laakiin la yeeli waayo qof walboo qofku ka awood badan yahu oo qoriga u qaadanaya waan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh